soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaa qaybtii u dambeysay ee seasonka inoo socday kahor inta aanan bilaawinin waxaa kaa codsanayaa inaad janaalkeena subscribe saartid videogaanni aad like saartid qaybtan waxay ku bilaabanaysaa askariga wuxuu u sheegayaa madaxdiisa inuusan mar dambe u baahnayn inuu sii raadiyo halka uu ku sugan yahay Tajan arrintan ayaa askariga ku abuurtay jahwareer maadaama Tajan aan weli la qaban markaas ayuu dambaaraha wuxuu sheegayaa inay waajib ku tahay inay raacaan amarka madaxda ugu dambeyn askariga wuxuu codsanayaa inuu raaco dambaaraha soo uu arko waxa qorshaha xig noqon doono dhan kale waxaa aragnaa oo hadda bedelaya gaarigiisa balse si lama filaan ah booliis ay u imaanayo isla markiina way xirayaan inuu ku eedeynaayo inuu dilay xubin golaha ka tirsan kaasoo ahaa aabaha Dogian Tajan isagana wuxuu helayaa wararkaasi isagoo ka daawanayo wararka waxaan si cad u arkaynaa inuu aad u naxay dhan kalena wuxuu mar walba ku celcelinayay inuusan waxba galabsanin MB waxay si joogta ah u qiilinaysay iyadoo rabta inay la kulanto aabaheeda balse booliis gabi ahaanba uma ogolaan inay gudaha gasho booliisku waxay soo bandhigeen cadeemooyin xoogan taasoo ah DNA-ga oo laga helay jirka aabaha Dogian dabcan tani waxay ahayd khiyaanadii Johan xilligaas si dhab ah u argagaxay intaas kaliya ma ahayn qareenkiisa ayaa isna ka baxay kiiska asagoo aaminsan inuu noo dambiile yahay waxaa mar kale ku laabanaynaa Tajan oo hadda joogo guriga wuxuuna arkayaa meesha oo burbursan markaas ayuu ogaaday in mid ka mid ah kaamirooyinka CCTV-ga uu yahay mid Johan leeyahay wuxuuna si carro leh ugu tuurayaa kaamirada waxyar kadib wuxuu arkayaa MB oo hortaagan wuxuuna si xoog ah ugu jiidayaa inay banaanka u baxaan MB halkaas ayuu ku ooyeysaa iyadoo leh maxaa aabay mar kale xabsiga loogu diray isagoo aan waxba galabsanin isla waqtigaas Johan wuxuu helayaa wicitaan u yimid Tajan aad buu ugu xanaaqay Johan isagoo ku canaananayo sidee ugu lug leeyahay oo gebi ahaanba aan waxba galabsanin kadib Johan wuxuu siinayaa Tajan fursad labaad wuxuuna ku amrayaa Tajan inuu aado meel gaar ah Johan ayaa sii hagaayay ilaa ay gaareen tunnelka halkaas Johan mar kale ayuu yiri waxaa jira laba fursadood oo aad dooran karto Tajan waxaa la hordhigayaa laba doorashada koowaad waa mindi taasoo ah qalabkii loo adeegsaday dilkii aabaha Dogian haddii Johan uu rabo inuu badbaadiyo waa inuu si toos ah isku dhiibaa oo galaa xabsiga doorashada labaad Tajan wuxuu qaadan karaa hal jeeg wuxuu ku qori karaa lacag kasta uu doonayo kadib Johan ayaana siinaya lacagtaas dhan kalena wuxuu xasuusanayaa noloshiisa uu la lahaa gabadhiisa iyadoo yar MB waxay ahayd gabar faraxsan oo qosol badan isla markaana aad u jecel aabaheeda MB marar badan ayay booqan jirtay aabaheeda asagoo ku jira xabsiga laakiin waxaa aragnaa in dabeecadda aabaheeda ay noqotay mid sii xumaanaysa xilligaasna wuxuu ka codsaday MB inay joojiso la xiriirkiisa isla markaana aysan mar dambe u imaan karin xabsiga markiina xabsiga laga sii daayay wuxuu si toos ah u aadayaa baqaarkiisa laakiin waqtigaas baqaarku wuxuu ahaa mid ay la wareegtay MB marab inuu baqaarka la wareego wuxuu MB ka dalbanayaa raaligelin isagoo sheegayo inuu si dhaqso ah ugu baxayo laakiin MB way diidaysaa waxayna ka codsatay inuu sii joogo halkaas balse uu bixiyo kirada goobta uu aqbalayaa runtii MB aad bay u jecleed aabaheeda balse xishood iyo nacayb hore ayaa kala geeyay inay si fudud isu muujiso jaceylka iyo cafiska u qabto isla waqtigaas Tajan ayaa kasoo muuqday banaanka wuxuuna si toos ah iskugu dhiibayaa booliiska isla markaasna cadeemaha ayuu tuurayaa markii MB aragtay aabaheeda oo kasoo baxay xabsiga aad bay u xanaaqday iyadoo aragtay inuusan awoodin inuu isdifaaco waxayna ku canaanatay inuu qirtay dembi uusan sameynin xilligaasna wax kale ma uusan sameyn karin marka laga reebo wuxuu isku dayaa inuu dejiyo MB isagoo isku duubayo oo hab siinayo soo qalbi ugu dejiyo xafiiska booliiska dhexdiisa dambaaraha ayaa wacaya Johan wuxuuna u sheegayaa in Tajan hadda ku jiro xabsiga Johan uu imaanayaa wuxuuna soo hor istaagayaa hortiisa Tajan halkaas ayuu Johan mar walba weydiinayaa sababta uu Tajan sidaas ugu sameynayo isagoo leh wax xiriir ah kulama lahan adiga intaas kadib Johan wuxuu si toos ah u wacayaa madaxda waardiyaasha wuxuuna u sheegayaa in qorshihiisa isbedelay sidaas darteedna Tajan waa in la dilaa wax kasta oo dhacaan kadib markii dib loogu soo celiyo xabsiga kadib askari Tajan xabsiga u waday wuxuu ka codsanayaa darwalkiisa inuu ka hakado mid ka mid ah goobaha nasashada sidii la filayay markii darwalku uu gudaha u galay soo u galo askariga ayaa si degdeg ah u wadaya gaariga isagoo la baxsanaya Tajan waxayna gaareen meel banaan ah halkaas askariga wuxuu ku dhahayaa intaas in ka badan waan ku caawin kari waayay hadda adiga ayaa mas'uul ka ah wax walba askariga wuxuu Tajan u sheegayaa in dhamaad kore ay joogaan dad asaga sugayo waxayna ahaayeen MB aabaheeda waxaan dib ugu laabanaynaa askariga oo markaas niyadjabsan kadib taliyaha xabsiga ayuu si toos ah u dharbaaxaya una canaananaya si adag dhan kale waxaa arkaynaa Johan oo ka qayb galayo bandhigiisa farshaxan ee gaarka ah isla waqtigaasna dhan kale Tajan wuxuu isu diyaarinayay argudishadiisa dhan kale askariga wuxuu sugayay dacwad oogaha si loo qabto madaxda xabsiga laakiin nasiib daro ma ahayn kii la qabtay ee isaga naftiisa ayaa la qabanaya maadaama lagu eedeeyay laaluush uu qaatay dhanka kale waxaa jiray marti VIP ah oo ka dalbaday ilaa 10 bilyan oo win markaas Johan iyo kooxdiisa si degdeg ah ay kor u aadeen si ay u qabtaan martidaasi Johan wuxuu u maleynayay inuu yahay Tajan laakiin markii albaabka la furay qofkii la moodayay Tajan wuxuu noqday Dogian isla markiina Johan waxaa qabtay booliiska isagoo lagu eedeeyay dilka aabaha Dogian BB waxay siisay warqad mid ka mid ah askarta lamana og wax ku qornaa balse waa la arkay arrintaas markii gaarigu dhaqaaqay gaariga asxaabtiisa Tajan ayaa waxay iska dhigayaan inay cilad galay markaas Tajan wuxuu qaatay mid ka mid ah gawaarida wuxuuna iska dhigay shaqaalaha Johan halkaas ayaan ku aragnaa Johan oo ku jiro xabsiga isagoo aad u welwelsan kana sugayo imaanshaha qof
qof isla markiina waxa imaanayo ciidanka Yohan waxayna dilayaan askarta iyo booliiska iyo dadkii ku jiray xabsiga si ay u tirtiraan marqaatiyaasha. Yohan si degdeg ah ayuu meesha u baxayaa xafiiska booliiska asagoo dhool cadeynayo. dhanka kale waxa arkeena Theoden oo si qarsoodi ah u galayo isagoo iska dhigayo mid kamid ah shaqaalaha Yohan wuxuuna si taxadar leh u eegayaa xaaladda guud. isla waqtigaas Dogen wuxuu bilaabayaa inuu la qeyliyo xanuun sidii qof gadaal laga ceejinayo. saaxiibayaal qofkaas wuxuu ahaa Yohan oo aad u arxan daran. Yohan isla markiiba ayuu dilayaa Dogen MB aabaheeda. waqtigaasna Nohan waxa mindi ku dhufanayso naag Shiines ah. si kastaba ahaatee aabaha wuxuu si walba u ilaalinayaa MB wuxuuna ka codsanayaa inay iska cararto wax kasta oo dhaco. MB way carartay balse ma iska aamusin. waxay dib ugu noqotay si ay aabaheed u badbaadiso. dhanka kale Dogen wuxuu ku guuleystay inuu si buuxda u galo guriga Yohan isagoo isqarinayo. markuu gudaha galayna isla markiiba ayuu bilaabay howlgalkiisa. waxaa halkaas ku sugnaa Duksu oo muddo sugayay Theoden waxaana la ogaaday inuu Duksu u ahaa qofkii Yohan soo kiriistay. halkaas waxaa ka bilaabay dagaal aad u culus. Theoden wuxuu ku guuleystay inuu ka adkaado Duksu. waxay kadib Yohan ayaa yimid gurigiisa. markii Theoden isku dayay inuu qaato cadeymaha dhabta ah waxaa la arkayaa naagta Shiineeskeed oo qabatay MB. Yohan wuxuu ku hanjabayaa haddii uu Theoden wax qaldan sameeyo MB khatar ayay gelaysaa. ugu dambeyn dagaal kale ayaa meesha dhacayo. Yohanna ma ahan sida uu isku muujinayo. wuxuu galayaa xaalad cabsi iyo jahwareer ah maadaama uu meel ciriiri ah ku jiro. markaas ayuu Yohan tusayaa video muujinaya sida walaalkiis Theoden u dhintay isagoo muujinayo in dhakhtarku uu ahaa kii dilay. markuu taas arkayna Theoden kama aamusin wuxuu mindi ku dhuftay Yohan. wuxuu ka baryayaa Theoden inuu dilo balse Theoden ma ahan qof duqan ah oo sidaas yeelayo. Theoden wuxuu ka dhaawacay meel gaar ah oo kaliya kadib wuxuu ku dhuftay hal fiir wuuna miir daboolmayaa. Yohanna si loo xukumo oo uu muntaystay qaabtiisa sharciga ah kadib uu kasoo tagayaa gurigana halkaas ayuu ku gubanayaa. maalintii xigtay warbaahintu waxay ku dhawaaqaysaa inuu Yohan ahaa dambiilaha ugu weynaa uguna khatarta badnaa. Yohanna isagana wuu soo miirsaday wuxuuna MB weydiiyey xaaladda Theoden. ugu dambeyn Theoden maxkamadda ayaa la keenayaa waxaana la cadeynayaa inuusan dambi lahayn. intaas kadibna Theoden wuxuu booqday qabuuraha hooyadiisa iyo walaalkiisa. halkaas Theoden wuxuu dareemayaa joogitaankooda iyo ruuxdooda isagoo xasuus qiraa la taagan. hadda Theoden wuxuu sidoo kale helay laba qoys oo cusub kuwaasoo kale ah Noha iyo MB. waxay noqdeen dad aad ugu dhow noloshiisa. halka askariga isagana u yimid booqasho wuxuuna Theoden siiyey hal ubax kaasoo uu daryeeli jiray xilligii uu ku jiray xabsiga waagii hore. filimkeenana halkaas ayuu ku dhammaanayaa. filimkan waa season 1 waxaa laga yaabaa inuu season 2 soo baxo. videogan haddaa ka heshayna like saar haddaa ka helin xataa like saar. waana mahadsantahay daawashada videogan aad daawatay.